السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقان شوقا إن صومالي محمد ميل كستد شوقتين وهذه السلامة يا ولا شيء أبح ورسمة والله لبدي مع الموضوع للصور في إن هرتا منا وانكحوا معي منا وانكفرح سنة هاي منا وانكفرح سنة هاي أو finally إن دمرك الصوماليات قبلي الصوماليات أي شيء كران إن dhibaatada loo geystay oo haday noqoto kufsi haday noqoto farax xumeynba horta taas aad ugu faraxsanahay midna waan ka xumahay in intaas dumar la eg numberkooda uu saa u badan yahay ay dhibaatooyinkaas ka soo gaaraan rag ay aamineen taas waa calool xumo laakiin maaha mid aniga igu cusub hore u arkay waa ogaa hadda ka hor waa xasuusateen video aan soo dhigay bartayda oo YouTube-ka taladii talaadada waad arki kartaan waxaan kaga hadlayay waxay ahayd waxaan kaga hadlayay videogaas wuxuu ahaa arinta ah in la joojiyo waxa la qarinayo walaalka aad qarinaysid oo dib ka soo galay eedada aad qarinaysid dib ka soo gashay hooyada aad qarinaysid oo wiilkeeda uu gabar kufsaday waxaas in la joojiyo war wallahi aan ku dhaartay walaalka ila dhashay haduu yahay wiilka aniga dhala haduu yahay haduu gabar farxumeeyo ana booliiska ugu yeeray rabbul izzan ku dhaartay ana booliiska ugu yeeray marka meesha horta wax ka qurunsan tahay ma aha ragga kaliya oo dhibaatada dumarka u geystay meesha wax ka qurunsan tahay waxa weeyaan dumarka ku haya dhibaatada dumarka midda dumarka ah oo sariirta la seexanaysa ninkii ogtahay gabadheed inuu farxumeeyay midda dumarka ah ee hooyada ah ee qarinaysa wiilkeedii oo gabar farxumeeyay midda dumarka ah ee oranaysa walaalkay waxaas kama suurowdo adiga ma sariir kula seexday walaalka gabadhu ku sameeyay ma adiga adaa soo wareystay ma adaa taagnaa meesha war wallahi meesha ka qurunsan tahay waa dumarka dhexdiisa ka shidan tahay naahoy idinka ayaa qarinaya nimanka farxumeeyay gabdhaha marka dumarka hoosteeda ka shidan tahay ballan waaye haddana siday u bilaabatay waaye anigana I will do wax alla waxa igu qaadato ina halkii dhibaato gabar ku sameeyay banaanka la soo dhigo loo dhiibo sharciyada wallahi qarsoodi dambe way dhamaatay aada ugu faraxsana in ayaga ka hadli karaan aada ugu faraxsanahay maanta inay joogto Me Too movement oo Soomaali ka dhex shidan oo ayagii ay banaanka u soo baxeen gabdhaha kaliya kuma eka kufsiga iyo faraxumeynta wiilashana way ku jiraan wiilal yar yar wiilal waaweyn inta waa la faraxumeeyay marka qof alla qofkii la faraxumeeyo fadlan soo wac balana uga qaad inaan ku garab istaago oo aan aniga booliiska ugu yeero kii dhibaato ku geystay hadaad baqaysid fadlan nala soo xirin anoo kale kaliya yaa shaqeeyo cidna uma shaqeeyo hay'ad kama socdo balana ku qaad inaan wax ahaan aniga aan garab ka geysto oon caawiyo oon ugu yeero booliiska oo sidii lagu caawin lahaa ka taliyo dumar badan u baahan inaan iska kaashano arintaas nimankii edabta darnaa waa loo soo dhigtay way dhamaatay qarqaris godkiina biyo idin kugu soo galay gabdhaha waxaan ku waaninayaa oon leeyahay good job sameeyeen shaqo fiican aa wadiin ka hadla it's not your fault abayo it's not your fault edo it's not your fault habaryar it's not your fault walaalo adiga ma aha dhibka waxa laga yaabaa inaad adigu isleedahay adiga dhibka geystay maya kan ku faraxumeeyay si unbu kaaga faa'iideystay kan ku kufsaday excuse umu haysan ku kufsado fadlan stand up u istaag speak up loud and clear get help we're here wallahi waan ku caawinayaa don't hide anymore ha qarin banaanka imo shaki dhibaato ku geystay sharciga loo dhiibayaa wallahi alcadiim way dhamaatay nimankii ku dhuumanayay meelaha waa dhamaatay